بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنت وعنو قبلنا هالكن هذا بورا مشر جرايد وعنو كذا هذا إنه تعدي بس هذا بيرا هي الوحيو ومدبس السعودي ومدي دولكي أي دقنيد أي وحكسو سارنسي للدولة اللي وعد هذيو أو مالو البقر اللي له رجوعه شرعي بعد مركي أري على نخوك الله أن سوق بكبيني بلن كينا وهاي سبت السكيمات واحد عضي شرعي وعن كبر أرجوني إذا ترفر بدن وأنه ماذا إن أي مالك صعدان عده صعدان إن لقيه دولكي دنيرتا أي كلا صباحين إن إذا كان لقيه والله ينادو وحلا واحد سيذكر سنة مجرته وحلا واحد 5 سنة مجرته odayaashii aan u dirnay in ay wada hadlaan ay haydna saakada aynu joogno waa maxaabiis uqaashi iyo salaadiintii waa maxaabiis dagaal bay dowladdu iclaamisay lagaga soo horjeedo beelaha iyaga waxaan ku leeyahay madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha baa arrinkaa wada isagana ka dambeeya waxaan u soo jeedinaynaa waxaanu leenahay madaxweyne meeshaa dadka lagu cadaadinayaa waa halkii aad diyaaradda ku tagtay maalintii ay dhacday duufaantu waa halkii aad siri wax laga soo saaro waa ummadii danyartahayd ee xoolahoogii iyo wax waliba ku waaye ayaa maantana loogu daray ciidamo inta la duldhiga la idhaahdo tan ma dhaqaajin kartiin arrinkaasi maaha arrin aan ogolaanano waanu ka soo horjeednaa waxaanu leenahay ummaddu waa ummaddii u shaqaynaysa xukuumadda waa dadkii taabacsanaa xukuumadda waxaynu ogeyn in ay bariga ka socdeen howlo aada iyo aad maarata inoogu xumoo laga hadlayay maantana waxaan leenahay galbeedkii baa lagu daray galbeed oo nabadaha ayaa la doonaya dadka in la kiciyo waxaan leenahay halaga daayo aada iyo aad baan uga xunnahay waxaanu leenahay ciidanka halaga soo celiya meesha odayaasha gardarrada lagu xidhayna ha la sii daayo ummaddana ha loo ogolaado inay wax soo saarto wax soo saarku waa danteenna waa danta ummadda waa danta dowladda waa danta shacabka dowladi waa tii dadkeega ku garab gashay inay wax soo saaraan inay ka hor tagto oo ay caburiso oo ay layso wax dowlad ay ku kacdo maaha waxaan leeyahay kusoo gabagabeynayaa arrinkaa xukuumadda dib ha u noqoto odayaasha la xidhayna ha la sii daayo ummaddana ha loo ogolaado inay dhulkooda cidna ma dilayso cidna ma doonayso dhulkooga wax ka qabsanaya dantii baa timi xoolihii baa ka dhammaaday beerihii baa ka burburay oo daadad ka qaadeen waad ogeydeen xukuumaddu way og tahay maanta in ciidamo la dulgeeyo halkii loo dhan lahaa waxbay soo saareen waanu ka soo horjeednaa ma ogolaanano waxaanu leenahay arrinkaa dib ha looga noqdo albab saaka maaha inay fulannimo naga tahay iyo inay taalyari naga tahay midunbay naga tahay saakadii hadal maaha nimankaa dowladda lagu sheegayana aanu kuba dheeraan maayo waxa weeyaan waraabaha hooyadii cunay habaryartii ugama reeyaa la yidhi waan dhegaysanaa tolkood iyo meeshay nimankaa dhulka ka madaxda waxa weeyaan halkan madax badan ba uga horeyso Soomaaliland 30 sano jirtay wax isqabsada iyo wax la isku diro midna la marki jirin anu kuwa ku dheeraan maayo ka ugu shar badanina waa kaay magac carabka lagu dhiftay waa arimo gudood la leeyahay calaamad islaamnimo meel la kaga ma taalo markaad ninka hortaagto مسؤولية سد نمبا إسكالة أنا عد كيجان سين إذا ما أنت وابن كحشون ياي ركسوا كوا دولة دي عن دورنا إله دان دورنا كاربان دورنا وحن لا هاي قالوا ما الله هذا يا الله بقول الله هذا يا هرت كلا نقول علينا يا والله هذا يا
meeshu waa ul iyo ninkii nala dhacayay kala nagu ulaynaya waan la hadlayaa ama dawladi ha ka dambayso ama masiibo ilaahay marka horeba calool xumo u dhaliyay oo dhalana ha noqoto waar kala nagu ulaynayaan meelaha iskaga dhawaan jirnayo faa'iido heli maysid wallaahi inaanad faa'iido helin khasaare mooyaane inaad faa'iido helin kan nagu ulaynayowna waxa la yidhi sheekhii ma garanaysaan Bukhari ee axaadiista ururin jiray ayaa nin baa lagu yidhi axaadiis buu hayaa fara badan uu lugayo uu tagay masaf marankii oo faras horqa qabanaya iyo arkaa la yidhi war ma kan baa run ii sheegi buu yidhi la iskaga noqdaa la yidhi horta waa naga dawlad leh cisho dhaweydina kaahin wuxuu yidhi dawladaha jaarku xadadka Soomaaliya ha ilaaliyaan buu yidhi wixii Soomaali ka dhaxaysana iyadu baa mas'uulka ah gadabursiga iyo baryadana waa kan dawladdu ku sheekayna anaguna waa naga dawlad leh war waxaasi wax iska tagay buu eg yahay anigu kuwa hadalkooga ku dheeraan maayo saddex nin baa ugu dhow dheer oo isku qola ah waa ninka iyo ninka lugayana wayna sugaysaa isaga tolkiya ceelaf weyn waxa ka dhacaya loog yahay war malaha bar jeclaa qandaraas nagu qaadatay ka ugu xunina waa kan imiga ciidanka kaxaysay gargaar dhex fadhiyo iyo kan arrimaha gudaha waxaan leeyahay kuwaasi anigu ku dheeraan maayo wixii ay damceen way damceen tolkay waa ka sidaa u hadlaya hadalku wali wuu jilicsan yahay wuxuu isku kay ag taago baan tolkay u tirin doonaa taasi waa intaa qola kale aad ula hadlaya waa qolada gadabursi la yidhaa isaaqu wuxuu yidhaa gadabursigu waa fule ma og yahay fuluhu markuu meel u baxsado waayo inuu ugu dagaal xun yahay gadabursow saddex sanadood baa yaa reehebel baa halkaa lagu reehebel baa beera laga qaatay dalaaya waxaa la isku hayaana waa dhulkaagii oo ma labada dawladeed hareerayga xigaan dhulka qaadan karaanu waxaad moodaa inay jabhadnimadii hore ay ku soo dagaalameen inay dawladnimada ka jecel yihiin kuwani wixii hore ay dhigteen nimankaan iska dhex saaradii baa socota gadabursow anu gadabursaan maanta u baaqayaa gadabursow raggaaga raqdiisa aadka ka celi maanta meel xun bay maraysaa raggaaga raqdiisa aadka ka celi salaamu calaykum waraxmatullaahi indha gallimba wuu socdo dareenkana gallimba waan qabnay gallimba waan qabnay waanan eegaynay fulintani maanta dadka qaar dhulka lagaga saarayo waa dad tirsan dadkii deegaanka ahaa ee ilaahay ku abuuray halkaa ee dawladda waxaad yeeshaa halkaa doorashadeeda iyo xisbigeega dadkii waxaad yeeshaa awoodda ku soo saaray weeyi waa arrin halka ay ka socoto annaan garanayn arrin dawladeed maahine waa arrin dawlad baabiis waxaan leenahay dawladdu hadday sidaa door mooday dee dadku waa dad waa ummad qarana allay leeyihiin afbay leeyihiin yeeli maayaan waxaan leenahay oo dardaanana dawladda dagaalkana dilcaamisay jooji dee ma joojinaysa wadigan bilaabay be dagaal inaad ilcaamisay oo dalkii adigu baabiinayso dawladeey waxaan ku leenahay jooji annagoo shicibkiiya duqaydiiya salaadiintiiya yaan leenahay dalka ha baabiin dawladeey dalka ha baabiinina ka jooji dagaalkan ka jooji dadkii shicibkii iyo dadkii ilaahay dhulka ku abuuray aad ku baabiinaysid ka jooji baan ku leenahay waxa weeyaan sidaa aad door mooday adigu aad ka fikirtay sidaa ma ahaanayso waa rag wuxu waa ummad qarana oo adduun weynaha laga yaqaano ilaahayna meesha ku abuuray sidan ay dawladdu ku fikirtay dee ma soconaysaan leenahay ma soconayso kadaa dalka dawladeey dagaalkan aad ka ilcaamisay kadaa haddii aanad ka daynayn waxa weeyaan dadkaasi waa dad
dee waxbuu isweydiin waxbuu ka fikiri waxaan ahaan doonina ma yeeli doono dhimashadan iyo baaba-ani dalka ka daabaan ku leenahay annaga ayaa dowladda waxa weeyaan dowladda doonayn qarannimadeeda dhisayna qarannimadeeda hayna haddaad diiday adigu dadkanina waxa weeyaan dee waxbuu isweydiin aar ka daaya adduun weynaha nin baa yidhi nabaday basanbaas oo balaayoy sara kac oo hebel baa ku balleeye ilaah u buro yeel buu yidhi annagu bisinkaan qabanayno ilaahayagii na abuuray baala bisinka waxaan leeyahay sidani farsamadani loo socdo ee Soomaaliland wadi dawladna uma danaynaysa dadkii shicibka ahaana uma danaynaysa dadkeedina uma danaynayso haddii ay sidan u bilaabay sidan hadday u qaadatay oo sidan damacday nin wax rooraan doonaba rabbaa og ilaahay waaxid ahaa jira oo ku kalsoonahay kolkore dawladana waan ku kalsoonay nabsina waa jiraa ina bixi waxaan leeyahay waari badan baan soo wada noolayn intaa naxasnimo kuma wada noolayn cadaawad kuma wada noolayn inta sanadadan dambe waadna ilaaliseen waxaad tidhaaheen waar meeshu dhicid wanaagsana oodiba ma taalle dhicid wanaagsana haddaad dee soo dhacaysiin waxba kama qabno halana daayo halana nabadgesho midnaba odhan mayno ilaahay iyagii annaga oo raacsan ummadaha inoo xigay iyo darisyada iyo Soomaali weyn iyo ummadda inoo xigtana innaga oo ku tawagalsan annagoo ku tawagalsan ilaahay waaxidha nin dhiman doonaba alla oge khasaaruhu meeluun ahaan maaye dawladuna way khasaari haddaad dagaal laamiyey dawladuna way khasaari oo faa'iido uma aha nabad bay faa'iido kuugu tahay annaguna haddeedeed waxaan joognaa annaguna loo 12 qaday baan soo arooriyay ilaahu haddaan dagaalamo miyaan gardaraa buu nii yidhi haddii sidan aad ka dayi weydeen haddaan suldaankayagii iyo odayadayadii dharaar walba ay gacanta ini hayaan oo ay leeyihiin waar ka daaya dadkayagii ka dambeeyeyna waan ka dareeray tan ha u fadhiin dee ninkii ay wax la ka dhimi doontaba ilaahay baa og annagu dagaal la iclaamiyey oo wasiirka arrimaha guduhu daanu wasiir arrimo gudow yahayba uma arkee dhulku iman lahaa balaayadu ka dhacaysa dadku ku dhintay maalin qura ma iman maxamedka ninka la yidhaahdo wasiirka arrimaha gudaha anigu fariin gaaraan u dirayaa fariintaasoo ah dagaalku ceel afweyn halkanaa ka daran inuu yidhi markhaati cad baanu haynaa halkanaa ka daran wadajir iyo lugaya iyadaa ka daran buu yidhi weliba markaa waxaan leeyahay anigu waar annaga waxba dhulka nagama yaaliin haddii aana taa ka noqonaynin waxaan baa ku dirayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo laamaha amniga halkaa balaayada aad ka huriseen dib dambe uma qaboobayso nin baa yidhaa la yidhi dagaal hadduu nin iclaamiyo nin dhe hadduu goobtii gaadhana nin labaad dhe hadduu ordana runtuu taabtay waa rag badan baa ordi doona haddii ilaahay yidhaahdo raggaad halkaa kusii guraysiin araaryu ciidamo kale wax walba meesha waad geyseen annagu ciidan kama baqayno naftayada maalkayaga dalkayaga intaba waan difaacaynaa waana ku filannahay annagoo cuqaashiya afka ku hadlayna haba yaraatee kama noqonaya anugu waxa weeye markaa waar arrinkaa fadhigaa haddaanad fadhi uga noqonaynin annagu waxaan diyaar u nahay inaan gamcaha isqabsanno inaan dhulkii wax kala soo baxno dee nin nabad hayaaba dhul wax kala soo baxa inaan horta shahiidnaan anagu ugu talagalnay kamana noqonayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan doonaynaa inaan u sheegno madaxweynaha inaan ogeysiino waxa uu ka wado ninkan la yidhaahdo wasiir daakhili anu wasiir daakhiliba dee ma arkee
nin doonaya dalka inuu dab ka shido un baan u arkaa marka waxaan madaxweyne aad iyo aad ku kaaga codsanaya dawladdu waxay u baahan tahay nabad oo inay dadkeeda ku xukunto ma burbur bay u baahan tahay mise waxay u baahan tahay dal la dhisayo oo dawladeed bay u baahan tahay anagu waan kala garan weynay wasiirkaasi wuxuu doonayo ka rabo iyada oo balaayo weligeed ka dhicin galbeed dhulka imika ku sheegayo magacyadooda ku sheegayo ayadoo weligeed balaayo lagu arag oonay ka dhicin ayuu nagu yidhi ceel afweyn bay ka daraan doontaa markaa wuxuu ogyahay wixii au aasay koronkortii au aasay buu ogyahay waxa ka qarxi doonu soo iyuu ogyahay waxbuu wadaa marka inaad ku raacsan tahay iyo inaad ku diidi doonto mooyaan inaad la ogtahay kale annagu waxaan ku leenahay dalku waxaan Somaliland lagu faaniyaa nabad iyo inaad tashatay waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa waxaan doonaynaa in la aqoonsi baan raadinayna caalamka weydiisanayna waanu soo dhow yahay yaan isku maaweelinaa marka maxaad aqoonsani maxaa layna aqoonsani dagaal intii horaam kala daadinayna ya shalay bay ahayd wixii aan afweyne ka qaxanay ee dibadaha uga yaacnay ee dalka banaynay ee bala kala qabsatay shalay bay ahayd ma waxa doonanaa intee dhii yareed isku soo hadhayna haddana kala qaxno oo dhulka u kala kacno dee madaxweyne wax ka qaba intay goor tahay hadhowtii la cali lahaa ya la hibatayn lahaa anu waxaan aad iyo aad kugula talinaya in aad maanta kuugu dhowdahay inaad hoos u eegto oo aad u fiirsato ninba wuxuu wada ogtahay shaqaalahaaga wasiir maaha muxuu ahaa dadka lagu sii daayo af Soomaaliga ma garanayo waataan hortagnay leedahay waxyaalaha ka socda waqooyiga ka socda ee ogtiin ee wasiirka arrimaha gudaha madaxda ka yahay uu ka noqday hadii alla ka dhigo sagu maraha waa dhul baan u maayna ku kaaneegna sagaba mala dooriya dhulka malaha yaa ku wadna ya dadka masaakiinta ee duufaanta qaaday ciida ka dul dhigay oo dhulkay beerina ka joojay horumar lama dooriya dadka dee malaha yaga raba malaha inuu sagu rabaan yaan u wadnaa oo aan u qaadanayna dee waxa weeye haddii sidaa halka loo eego dadku waa qolo haddii dawladda la waayo dadku waa qolo waa qabaayil weeyaan qabaayil isku tagay baan nahay qabaayil isku tagay yaan nahay haddii madaxdu ay ka soo baxday qabaayil loo badan tahay weliba waxaan u arkaynaa siyaasadahaan rag dhulka doonaya oo anaga madax noo sheeganaya dee nin baa yidhi waa dagaalka jooji baa qolo lagu yidhi beri joojin maayuu yidhi ma joojinayso maaha dagaalku waa bismillah buu yidhi kale waa bismillah gala buu yidhi dagaalka anagu ama qori hayso ama lacag hayso ama hub hayso dagaalku waa bismillah weey waxaana ku talagalnay imika oo naga go'aana madax dhaqameedka suldaanada wax garadka haweenka markaa wax isweydiinay waxa naga go'aana dagaalku waa bismillah haddii imika degdeg ciidanka looga qaadi waayo